This is traditional, our man is what they're wearing. Yeah, this is normally we taking something to drink, we're just suffering a long time. Yeah, and this is one which we play, normally in the music town. Yeah, and this is, yeah, of course, we're going to show you a lot of plays, tonight. And this normally that we're sleeping in the leg, just giving neck, so. Yeah, this is Soomaaliya traditional things, barnaamijku waa uu fara badan yahay waanu socon doonaa tan iyo caawa gelinka shaqada dhexe qaybta labaad ee barnaamijka haddii aan u soo gudbo waxa markaana aan u yeeraynaa ururka horumarinta Soomaaliya daadehey Somali Development Organization waxaa la aasaasay sanadkii 1993 waxaana uu shaqeeyaa arrimaha bulshada Soomaalida ku nool dalka Ingiriis gaar ahaan magaalada London waxaa laga aasaasay xaafadda Chelsea haddaba waxaan ku maamusnay maadaama uu ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan abaabulkeedana uu iska leeyahay inay qaataan furitaanka iyo soo dhaweynta asxaabta ka soo qayb gashay barnaamijkan waxaana halkan ka aqrin doona qaybta soo dhaweynta madaxa ururka daadeheye waa madaxa ururka daadeheye Dahaba Dawla. She's currently the executive director of Dahdidi Somali Development Organization, which was established in 1993 at the London Borough of Chelsea and Kensington. Please welcome Miss Dahaba Dawla. Good evening. First, I would welcome and share to say something. Good evening, ladies and gentlemen. We did not stand here to say anything. I just would like to welcome Councillor Dr. Ian Heyman, the Deputy Mayor of Kensington and Chelsea, to deliver a brief speech on our Independence Day. Ladies and gentlemen, I would also like to welcome Councillor and Deputy Mayor Hanman to stand beside her husband. Please welcome. Thank you everybody for that most generous applause. I'm delighted to be here. I'm delighted to welcome you here tonight on this very special night for you, the Independence. And we welcome you to our community. We're absolutely delighted to have you with us. We're delighted that everything is going as well as it can. And we sincerely hope you have a very good evening. Kuso Dawada. I didn't know he could do that. Ladies and gentlemen, I can't really cap what my husband has said, except to tell you that we are both very, very delighted to be with you here on what is obviously an extremely special evening for you all. I have known your community since I was leader of the council here some time ago, and I've always been
immensely interested in you and in the enormous efforts you have made to settle with us here in the United Kingdom. markana waxaan u gudbaynaa qaybta madadaalinta dabcan xusuusta wadaniga dhabta ah qalbigiisa waxyaabaha ku beeran waxaa si toos ah u kicin kara sidaan aaminsanahay qaybta suugaanta oo ah dadka wadaniyada aadka u jecel qaybta xusuusta weyn ku beeri karta waxaan u yeelaynaa markana qaybta madadaalada fanaaniin caan ah oo aad garanaysaan qaarkood ay ka muuqan doonaan kuwo kale oo waqtiyadii dambe iyaguna fanka ku soo beeray sahantoodana caan ah ayaad ku arki doontaan masraxa waxay qaadi doonaan heeso wadani ah oo runaantii ka turjumaya maalinta qiimaha weyn ee Soomaalidu ay leedahay kowda luulyo. Next, we would like to introduce a whole group of Somali famous singers who are going to sing some patriotic songs for us. So please welcome. suugaanta Soomaalida